Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada shabakada Seexatiij oo uga barateen in idin soo bandhigto cilmiga teknoolajiyada. Waxaynu ku guda jirnay oo aynu ka hadlaynay koorso cusub oo ah WordPress. Koorsadii tan ka horeysay casharkii ka horeeyay waxaynu kaga hadalnay sida WAMP server loogu shubo computerka. Waxaynu casharkan kaga hadli doonaa haddii Ilaahay idmo sida WordPress computerka loogu shubo inagoo soo qaadan doona qaabka ugu fudud ee loo isticmaalo. Talaabada ugu horeysa oo aynu qaadayno waxay noqonaysaa marka ugu horeysa waxaan tegayaa WordPress, kadibna WordPress-ka hadda waxay tahay winrar. waan furfurayaa oo waxaan ka dhigayaa folder caadi. waxaan ku samayn doonaa maxay extract. sidaas daraadeed waxaan leeyahay extract here. waaw inoo furfurmay. hadda waxaan leeyahay markaa right click, kadibna waxaan leeyahay copy. waxaan dul tegayaa C, kadibna waxaan ka dooranayaa WAMP. waxaan kasii dooranayaa www. waxaan halkan ku baasti gareyn doonaa WordPress-kii aan soo furfuray, kadibna waxaan leeyahay paste. wax yar baan sugayaa. طبعا saan u jeedno waa inoo soo gashay, kadibna waan iska kansalaya. waxaan dib ugu noqon doonaa waambigeygii. waxaan siin doonaa click, kadibna yes. halkan uu inoo soo geliya. markuu calaamada uu cagaarka noqdo ayuu active noqonaya. kadibna waan soo furaya, kadibna waxaan leeyahay localhost ayaan dooranaya. waxaa inoo soo furmay folderkii WordPress. waxaan click siinayaa WordPress. dabcan saan u jeedno facekii ugu horeeyay ee WordPress ayuunu soo galnay. halkan waxaa layna weydiin doonaa ama aynu ku arki doonaa dhowr option oo ay ka mid tahay qodobka koowaad database name-ka. waa marka ugu horeysa waa inaan sameynaa database-ka aynu ku geli doono WordPress. waa inaynu soo sameynaa. si aynu u sameyno hadda waxaynu tegaynaa WAMP-ga, kadibna waxaan ka dooran doonaa phpMyAdmin. waaw inoo furmay. waxaan dooran doonaa meeshan ay ku qoran tahay new, kadibna halkan waxaan inoo soo qormi doonaa database-ka amaba inooga muuqdo database name-ka. sidaas daraadeed waxaan u bixinayaa anigu Seexatiij 1, kadibna waxaan leeyahay create. database Seexatiij 1 waa la abuuray. sidaas daraadeed hadda waan iska kansalayaa. waxaan ku noqonayaa kadibna qaab facekii koowaad ee WordPress. kadibna waxaan dooranayaa meeshan ay ku qoran tahay let's go. waxaa halkan ku qoran database name. halkan waxaan gashanayaa magacaan usoo bixiyay database name-kayga oo ah Seexatiij 1. waxaan halkan ku arki doonaa username. username-ka waan iska tirtirayaa. password-kana waan ka tirtirayaa. waxaa halkan ku qoran localhost. waxaynu halkan ku qori doonaa root. password-kana waan ka tirtirayaa. kadibna waxaan leeyahay submit. sidaad u jeedaan hadda wuxuu inoo soo qormay run install. ku install gari ama ku shub WordPress. waxaan leeyahay click ama waan riixaya. sidaynu u jeedno hadda waynu ku guuleysanay. facekii waxaa ku qoran halkan oo lagu soo qoray. waxaad ku qortaa halkan wixii aad u bixin lahayd website-kaaga oo title ciwaanka inoo soo muuqanaya aad u bixin. waxaad halkan ku qoraysaa ciwaanka title-ka website-kaaga.
waxaan u bixin doonaa Sayx Teach 1 username magaca aan gelin doonana wuxuu noqonayaa Sayx kaliya. saad u jeedaan halkan wuxuu ku leeyahay password abuuro, waxaan oo dhan waan iska tirtirayaa. passwordka waxaan ka dhigi doonaa 123 Sayx. ugu mar walba waa inaad ka dhigtaa strong dhibic hash 58 kadibna waxaan dooranayaa tigta saaraya search engine-ka, waxaana dooranayaa install WordPress. waa inaad gelisaa buu yidhi emailkaaga, waa must. sidaas daraadeed waxaan gelin doonaa emailka aanu leenahay. kadibna waxaan leeyahay install WordPress. waxaynu gelin doonaa kadibna waxaan halkan gelin doonaa passwordka, kadib waxaan leeyahay login. waxaan u jeednaa inaynu ku guuleysanay oo aynu ku shubnay. waxaan tegayaa dashboardka, kadibna waxaan tegayaa visit site si aan u arko bal home-ka website-kii aan ku shubay, si aan u arko home-ka website-kayga. si aan u arko qaabka uu yahay u noqonayo website-kayga. saynu u jeednaan hadda waa from beginners oo wax template qurux badan haba yaraatee uu leeyahay ma jirto. design-kiisu aad iyo aad buu tibcaan u yahay. waxaynu casharka ku xigay ka hadli doonaa sida template qurux badan loo saaro website-ka. la socod wanaagsan.